wardegdega saaxiibayaal diyaaradda Akanji oo lagu bartay inay duqeymo culus ka fuliso qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa caawa lagu arkay qaybo ka tirsan degmada Balad Xaabo ee gobolka Gado. Diyaaradda Akanji ayaa caawa lagu soo waramaya in caawa guud ahaanba ay dul heehaabayso hawada degmada Balad Xaabo ee gobolka Gado kadib markii caawa halkaas uu ka qarxay dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. sidoo kale dagaalkan iyo diyaaradan caaw halkaas lagu arkay ayaa daba socda dagaal shalay galinkii dambe ciidamada maamulka Jubbaland ay ku qaadeen fariisin ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed ay ku lahaayeen xer UK oo ku taala degmada Balad Xaabo ee gobolka Gado. sidoo kale diyaaradda Akanji ayaa caawa hawada degmada Balad Xaabo ee gobolkaasi Gado lagu arkay waxaana saacadihii la soo dhaafay halkaas ka soo baxay warar sheegaya in halkaas caawa xiisad culus oo cabsi ku dheehantahay ay la soo diristay shacabka degmada Balad Xaabo ee gobolka Gado waxaana halkaas guud ahaanba caawa ka bilowday qax oo ay ka qaxayaan shacabkii degmada Balad Xaabo kadib markii caawa hawada degmadaasi ay ku arkeen diyaaradda Akanji oo lagu bartay inay duqeymo culus ka fuliso qaybo ka tirsan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. sidoo kale diyaaradda Akanji ayaa lagu bartay xasuuqa kooxaha Al-Shabaab ay markii hore u geysan jirtay qaybo ka tirsan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan iyo Shabeellaha Hooseba. diyaaradda Akanji ayaa markaan u muuqata inay u weecatay dhanka maamulka Jubbaland kadib markii caawa lagu arkay qaybo ka tirsan gobolka Gado gaar ahaan degmada Balad Xaabo. sidoo kale waxaa la soo warinayaa in haaba halkaasi lagu arkay diyaaradaha helicopter dhawaan Soomaaliya la soo wareegtay kuwaas oo caawa dul heehaabaya hawada degmada Balad Xaabo ee gobolkaasi Gado. lama oga sababta rasmiga ee ka dambaysa caawa diyaaradda Akanji in lagu arkay qaybo ka tirsan gobolka Gado gaar ahaan degmada Balad Xaabo hawadeeda waxaana la soo warinayaa in halkaasi caawa ay ka jirto xiisad culus oo u dhaxeysa maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya. sidoo kale waxaa la soo warinayaa in caawa halkaas ay ka taagan tahay cabsi culus oo la soo wajahday ama la soo diristay shacabka degmada Balad Xaabo ee gobolka Gado iyagoona halkaas caawa uu ka taagan yahay qax ba'an oo ay qaxayaan shacabka degmada Balad Xaabo kadib markii ay arkeen caawa diyaarad heehaawaysa diyaarada dul heehaawaya hawada degmada Balad Xaabo ee gobolkaasi Gado. shacabka degmada Balad Xaabo qaarkood oo la xiriirin ayaa inoo xaqiijiyay in caawa ka hor aysan arkin diyaaradda Akanji iyo diyaaradaha helicopterka dul heehaawaya degmada Balad Xaabo ee gobolkaasi Gado waxayna inoo sheegeen in caawa ay guud ahaanba isaga qaxeen degmada Balad Xaabo ee gobolkaasi Gado iyagoo ka baqday ama iyagoo ka cararay duqeymaha diyaaradaas caawa ay ka geysan karaan qaybo ka tirsan degmada Balad Xaabo ee gobolkaasi Gado. caawa halkaas waxaa ka jirta xiisad culus oo u dhaxeysa maamulka Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya taas oo ugu dambeyn gaartay in dowladda Soomaaliya ay adeegsato diyaaradaha wax duqeeya kadib markii caawa lagu arkay qaybo ka tirsan degmada Balad Xaabo hawadeeda diyaaradaha kuwa helicopter ee dhawaan Soomaaliya la soo wareegtay iyo diyaaradda Akanji oo lagu bartay inay duqeymo culus ka fuliso qaybo ka tirsan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan iyo Shabeellaha Hooseba taas oo lagu bartay in kooxaha Al-Shabaab ay ku beegsato meelaha ay ku sugan yihiin ama fariismaha ay kaga sugan yihiin qaybo ka tirsan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. guud ahaanba caawa gobolka Gado waxaa ka taagan xiisad culus lama oga sababta rasmiga ee diyaaradahan caawa halkaas loogu arkay iyo sababta rasmiga ee ka dambaysa in diyaaradaas caawa halkaas ay tagaan misna ay dul heehaabaan hawada degmada Balad Xaabo ee gobolka Gado. sidoo kale waxaa la soo warinayaa in degmada Kismaayo caawa uu ka taagan yahay dhaqaaq ciidan kadib markii ciidanka guud ee degmada Kismaayo caawa heegan buuxa la geliyay iyagoona foojignaan dheeri muujinaya kadib markii loo sheegay in caawa guud ahaanba degmada Balad Xaabo hawadeeda lagu arkay diyaaradaha wax duqeeya Akanji iyo diyaaradaha helicopter ee dhawaan Soomaaliya ay soo qiibsatay. guud ahaanba caawa halkaas waxaa la soo warinayaa inay ka taagan tahay xiisad culus lama oga sababta rasmiga ee diyaaradaha halkaas ay u tageen lamana xaqiijin karo wixii warar ka soo kordha adiga ayaa ugu horeyn doona waxaan ka codsanayaa haddii ay tahay markii hore soo booqatay inaad subscribe dhaha channelka like ni saartid si aan u helno saaxiib badan adigoo kale aad iyo aad u mahadsantahay.